بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها خيارتي أصحابتي أن جعلها جنة الكواني وعيقلين كحران ولا ليال سود وهذا انت نوع سبنا وحان لين هي سود وهذا إن شاء الرحمن ورد عدي معركة فيرستي هبين مذي حالة فيديو جان صور دقاي وفيرستي موضوع عن كهذا دونا حالا سي إعلامي يعني حالا سي الشيغي هذا إعلامي فهمين marka mawduucan ka hadli doono insha Allah raxmaan oo mawduucan journal ku soo kordhin doono kaasoo ah inaan insha Allah raxmaan idin soo gudbin doono qisas diini ah oo ma aragtaa Carabi oo soo tarjumi doono insha Allah raxmaan mar walba ma aragtaa qisadii aan isdhihi karo walaalaha waxbay ka faa'iidi doonaan insha Allah waan idin wadaagi doonaa maalin qisaskaas ay noqon doontaa labada maalin oo kale intoodna sida caadadu jadwalka journalkeena insha Allah raxmaan ku socon doonta hawshu marka maanta insha Allah raxmaan qisada ama maaragtaa sheekada koowaad aan rabo in aan idin la wadaago waxay tahay horta intaan sheekada u guda gelin walaal insha Allah raxmaan si aad maaragtaa qisaskaas diiniga iyo waxyaabaha kale aan ka faa'iidno si aad noola socoteed maalin walba waxaan insha Allah raxmaan ka codsanaa waxay tahay inaad channelka subscribe dhahdid insha Allah marka aan bilaabano qisadeen maanta qisada ugu horeysa insha Allah raxmaan aan rabo inaan ka waramo waxay tahay horta qisada magaceeda horta waxaa la dhahaa been ha sheegin Allah insha Allah raxmaan sida ma aragtaa ciwaan ku soo aragteenbo marka insha Allah maxay heetoole qisadan marka waxay ku saabsan tahay ama waxa laga wariyaa inay ku dhacday Sheekh Maxamed ibn Idris al-Shaafici oo ah ma aragtaa imaamka aan dabcan anaga hada Soomaalina u nisba sheegna Soomahan Soomaalida soo lama dhaw Shaaficiyiin marka imaamkaas ku dhacday insha Allah raxmaan horta sheekada marka waxay u dhacday waxa la dhahay asagoo aad iyo aad u yar ah waxa la dhahay wuxuu rabay maxay heetoole inuu safro oo magaalada Madiino ma aragtaa uu safro Madiinatu Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam isagoo marka halkaas ugu socday inuu cilmi insha Allah raxmaan uu ma aragtaa ka soo faa'iido marka waxa dhacday hooyadiis ma aragtaa waxay sameysay waxay u soo diyaarisay lacag ma aragtaa 60 diinaar 60 diinaar oo markaas joogtay lacag qiimo leh dabcan ahayd marka waxay sameysay 60 diinaar waxay dhahday waxay tir hoo qaado kolley adigu maxay heetoole way ku anfici doontaa ilaa waa lacag qof safar mar walba moogtaa haddana walibana ilmo yar de waaba isaga baahan Soomahan marka adigu waxay tiri lacagtan qaado marka maxay heetoole marka lacagtiisii uu qaatay lacagta markuu qaatay marka hooyadii marka way mucaanaqaysay oo ma aragtaa hab ay siisay ilaa ilmaheedu way sigootinaysaa Soomahan wayna la dardaarantay waxay kula dardaarantay marka waxay tiri hooyo weligaa been ha sheegin waayo waxay tiri runtu saaxiibkeed way badbaadisaa okay asna wuxuu ku celiyay waxay tahay ilmi yara hayo hooyo haddana mar labaad ee mucaanaqays habsiisay kadib wuxuu dhahay hooyo ii dardaaran haddana markii labaad waxay u dardaarantay hooyo weligaa been ha sheegin intii oo kale ugu celisay wiilkii intii uu xifdiyay uu guntay uu ma aragtaa uu gooska dambe dhigtay kadib waxa dhacday waa la safray waxa la qaatay waxay tahay gaadiidka safarka macnaheedu loo fuuli lahaa la raacay markay in yar sii socdeen waxa dhacday waxa la dhahaa kooxo burcad ah oo ma aragtaa jidgo ma aragtaa kuwan dadka jidka u gala dadka safarka ah meel uga soo baxay meesha markay uga soo baxeen waxa la dhahay dadkii rakaabka ahaa ma aragtaa gaadiidada wato dhan oo safarka ahaa wax allaali waxay dadka heesteen kulli way ka soo wada aruursadeen kulli marka dadka wixii dhamaa ka soo wada aruursadeen wiilkaano yaraa loo yimid waxa lagu yiri waray adigu wax ma haysaa yaa dhahay waxay tad kuwi maxay heetoole dadka wax ka aruursanay burcadaha wuxuu yiri anigu wax waan haystaa oo maxaad haysataa wuxuu yiri waxaan haystaa 60 diinaar aan haystaa anigu 60 diinaar ma aragtaa bahal yaro 60 diinaar ay ku xiran tahay aan haystaa okay waxa la marka nimanka waxay dhaheen maxay heetoole warkan uu iska ciyaarayaayo waa ilmo yare iska daaya waa laga tagay waxay u tageen ninkii ma aragtaa siciimkooda ahaa ee soo dirsaday oo hogaamiyaha u ahaa waxay dhaheen maxay heetoole dadka wixii dhamma ka soo aruuriseen u dhahay waxay dhaheen wixii dhammaay waan ka soo aruurinay ilaa hal wiilkaas wuxuu nagu yiri ilmo yar weeyaan oo kale uu iska ciyaarayo wuxuu yiri waxaan rooriyaa wax ma haysaa wuxuu yiri waan hayaayo 60 diinaar aan haystaa marka 60 diinaar ilmo yar ka ma haysan kare kulli waa iska ciyaale anagu ma aragtaa waa iska ciyaarayaan anagu iska ciyaarayaan la tahay marka waa isaga soo tagnaa ninka wuxuu yiri marka hogaamiyaha wuxuu yiri waxa ay keenteen wiilka yaa loo keenay waxa la yiri war wiilihow kaale marun baa la yiri inaad 60 diinaar haysatid wuxuu yiri waa runna 60 diinaar haysto
wuxuu yiri soo saar baa layiri wuu soo saaray 60 diinaar oo nimanka u dhiibay markaas wuxuu ku yiri waryaa buu yiri wiilyahow miyaad waalantahay buu ku yiri markaas uu yiri maya ma waalni oo hadaa wuxuu yiri ma hadaada waalne wuxuu yiri annagu ilmo yar baa tahay ma haysta maxaa isaga dhiiweysay waxaaba ma aragta ku suurtagal aheed inaa been iska sheegtid oo kadibna aad sidaas lacagtaada ay kugu badbaadee annaguna ilmo yar baa tahay iska ka rumaysan lahayn wuxuu yiri aniga hooyaday buu yiri waa waxay ula soo dardaarantay buu yiri been ha sheegin maxaa yeelay runta iska sheeg mar walba runtu saaxiibkeed mar walba way badbaadisaa ninkii hogaamiyaha kooxda u ahaa aad iyo aad u qiirooday aad iyo aad ma aragta u murugooday muxuu ka murugooday ilaahay qulubta bini aadankan asaga gadgadiiso maahan qalbadiisu ilaahay wax ku tuuray wuxuu yiri adigana ma wuxuu yiri ilmo yahow yarka oo saqiirka ah buu yiri ma waxa aad fulinaysaa buu yiri dardaarankii hooyada aadka sidaas aadka kuula weyn buu yiri annagana wuxuu yiri ma ilaaha raxmaanka ee na abuuray ee wax walba nimcaan haysanna siiyay miyaan maaragtay hadalkiisa qaadan weyne oo ku dhaqmi weyne oo jidgooyooyin dhiganay oo dadka safarta aha dhibeena wuxuu yiri ciidamadiisii la hadlay wuxuu yiri wax allaaliya waxaad haysaan ee cidad ka qaadeen farta ka saar ku celiya ilmihi yarkaana 60 diinaar waa loo celiyay oo imaam Shaafici ahaa maxay toole waxa la yiri waxa kale sameeyay ninkii go'aan ku gaaray maalintaas wixii ka dambeysay inaysan jidgooyo dambana dhiganin inaysan maxay toole aysan cid dambana dhicin wax dambe oo ma aragta bani aadamka dhibaayaysan maalintaas wixii ka dambeeyay aysan sameeynin marka sheekada intaas ku soo gabagabowdo horta sheekadan marka fawaa'iday waxyaabaha aan kala dhaxbixi karno waxay tahay horta imaamkaasi ilaahay ha u naxariistee waxa horta maxay toole horta hooyo wanaagsan baa dhashay halkaas waxa nooga muuqato inay dhashay hooyo wanaagsan asagana waxa halkaas nooga muuqato hooyadaas wanaageeda waxa ku tusayo dadkaas oo idil bay ma aragtaa waxay haysteen safarta ahaa hadalkeedii hooyadaas wanaageeda hadalkeedii uu ilaahay ku badbaadiyay ilmaheeda yarka kula soo dardaarantay waxa kale oo iyadana sheekada aan kala dhaxbixi karnaa waxay tahay maxay toole ilmahaaga hadii aad saaxiib u dhow tahay dabcan halkaas waxa nooga muuqato ilmuhu ma qaateen hooyadiis haduusan ahayn aysan ahayn hooyadiis saaxiib ayadu u dhow haduusan adaysan ahayn warkeeda dabcan saas u muusan soo qaateen midda kale meesha taalo waxay tahay ilmahaaga hadaad adiga run kula dhaqantid waxa xaqiiqo ah in ayaguna runta kugula dhaqmayaan oo waxa tiraahdo aysan khilaafi doonin laakiin hadaad ilmahaaga inta tiraahdo waryaa run sheeg adigana aad cagsiga sameeysid lagama yaabo ilmahaaga inay runta sheegaan ama inaad wanaag ka aragtid bilcagsi sida adiga u dhaqmaysid u dhaqmayaan maxaa yeelay ilmaha yarka inta badan wax ku qaataan waxay tahay waxay arkaan ee waxay maqlaan waxba kuma qaataan waxna kuma lahan marka intaasna waa ma aragtaa maxay toole waxyaabahan sidii kara qisadan waad ka faa'iidi doontaan ayadoo qisadan ayada dhanba ay tahay ma sha Allah tabaaraka raxmaan wax cibra ah oo ma aragtaa aad u faa'iido badan marka maxay toole insha Allah raxmaan sheekadii ama qisadii maanta idinku talagalay inaan idin la wadaago intaasan insha Allah raxmaan ku soo gabagabeynaya aad iyo aad ugu mahadsantihiin dhageysiga aad codkaygan dhageysateen insha Allah raxmaan fiidiyoogan ama muuqaalka insha Allah raxmaan inta ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa waxay tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh